madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo saaka safar shaqo ku yimi magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ujeedkiisu daaranaa sidii uu dabagal iyo indhayn ugu samayn lahaa waxyaabihii ka fulay mashruuca GPLG-ga ee ka socda guud ahaan gobolka Saaxil deegaanadiisa kala duwan iyo magaalada Berberaba maamulka degmada Berbera oo horkacayo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaana goob u istaajiyay waxyaabihii ay qabteen ee ka fulay mashruucaasi GPLG-ga markii uu kormeerkaasi soo idlaadina waxa xarunta madaxtooyada ee magaalada Berbera lagu qabtay munaasabad lagaga hadlayay isla markaasina lagu tartansiinayay shirkadaha ka qayb gali doona wadooyin laga dhisayo magaalada Berbera iyo welibana mashaariic kale maamulka degmada Berbera ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay sanadda 2019 iyo welibana waxyaabaha ay ku hamiyayaan waxaana kamid ahaa hadaladoodii مشاريع دلوقتي شيء برضه صار مشاريع لقرشات عالية وحكمنا مشروع حوار كسرت المجالدة ورنتي نقضي مشروع نعمي في البرنامج عالية لسودويين لا حوله مجال البرنامج المدرسة حين نشوفه وحكمنا مدرسة هذا شرف لواء إلى البرنامج سنة كده ماضي إن كبر سطح الكل جد إما كان أيضا لبضة كونية لبعتك على الجانب عن البروني كبيرستي لبضة كونية لبعتك ما دام حنانيين يوم وبيش اللي حد هدي قالوا على حلقة بينك البربراء. مركز كب حدين من هذا الجديد هذا وحكش غيسا مركز دقمة الشكل جرهبه بقول يلي عن كيلومتر وبريا بقول يلا بعتك كيلومتر وقلبيرة بقول أفرتن كيلومتر وكونفرا. inta waxay gaarsiisay adeegyada asaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka marka waxaan jecelahay labadan umikeena hor jooga ee gacanta ku hayno ee modelkeeno ah ee noo guuleystay waxbarashada iyo caafimaadka inay yara tibaaxo farqiga u dhaxeeya qaranka waxa guul ah oo dadka reer Berbera guul ah oo dadka degmada Berbera guul ah inaynu halkan ku arkaynay lacag dhan $1 milyan inay gasho caafimaadka iyo waxbarashada ayaan ku arkaynay iyo horeyna waxaan ka gali jirin degmada dhaqaalaha degmooyinku waxay ku xiran tahay mar walba cida maamulaysa si ay u maamusho madaxweyne intii hadda aynu jidka soo maraynay waad arkaysay bilicdiisa iyo wanaagga iyo horumarka gobolka ka socday oo aad soo aragtay gaar ahaan intii GPLG-ga hoos imanayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa mashruucan GPLG-ga iyo welibana sidii uu sii hana qaadi lahaa waxaana uu sheegay in maayarada dalka ay ku dadaan sida maayarka degmada Berbera waa sida uu hadalka u dhigay waxa loo tababaray oo ilaa imka ay weli qaarkood la qabsan leeyihiin maaha inta hay'addu maamusho transparency laga dhawaa karo hay'adii baa maateen bandhigtay mashaariicda la dhaamaha wax kasto bixinayo ninka mayorku degmada dooha joogo inuu ummadda dhex dhigo weeyaan isagana waa u eedlaan ummadana waxay u sameeyaan wax in sinaan u sameeyo hadda si kasta qofku uu mashruuca uu ku bixin procurement-kii tenderkii loogu talagalay dul marinin waa wax iska cad wax tuuga weeyaan wax inaad ku leeshiiyay intuu doono dul dhigtay if ya akhir midna xuma noqoyso ummadina u khiyaamay 12 sano dawladda hoose waxa isku socdeen waxa loo sheegay in wali ninkan ku dhaqamay saacada aan joogno waxaynu aqbali karno ma hayno Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalada xeebada Berbera daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee SAB TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka SAB TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida